kadib markii sanadihii u dambeeyay ay soo kordheen khatar caafimaad oo la xiriirta aqoon la'aanta dhaqaatiir sheeganaya inay yihiin dhaqaatiir balse aan aqoon durugsan u lahayn kuwaasi oo dhibaato ku abuuray shacab Soomaaliyeed isla markaana sababay in qaarkood ay u dhintaan qalliimo iyo daweyn ay ku sameeyeen ayaa waxa qaar ka mid ah shacabka gaalkacyo oo aan maanta la dhax qaaday makarafoonka warbaahinta qaranku ay ka hadleen dareenkooda ku aadan sida looga feejignaan karo khatarta dhaqtarka dilaaga isagu ku qaraabanaya magaca dhaqtarnimada isla markaana aan aqoon durugsan u lahayn shaqada uu leeyahay waa uu qabanaya bulshada ee dhaqtarnimo waxaana shacabka intiisa badan ay dusha ka saareen wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada iyo tan federaalka Soomaaliya oo ay sheegeen in iyaga ay waajib ku tahay hubinta dhaqaatiirta iyo goobaha caafimaad iyo sidoo kale tayada qalabka iyo daawada laga isticmaalayo isbitaalada ganacsiga ee ku soo badanaya dalka taas oo inta badan ay sababtay in ay ka howlgalaan dhaqaatiir aan aqoon u lahayn shaqada dhaqtarnimo ay qabanayaan isla markaana bulshada dilaa ku noqon kara. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Caafimaadku waa halbowlaha ugu muhiimsan ee bini'aadanka iyo noolaha dhirta dadka iyo xoolaha lagu badbaadsho. marka haddii aan qof aan aqoon lahayn intuu sheegto uu galo inuu wax daaweynayo dadkuna ay u aaminaan wuxuu keeni karaa khatartii la filayo inuu ka daaweeyo khatar ka culus ayuu keeni karaa Soomaaliya sidii ay u burburtay oo dalka burburku uga dhacay waxyaabaha la biliqaystay ay ka mid tahay sheegashada dhaqtarnimadu waxaana lagu sixi karaa wasaaradda caafimaadku in ay dhaqaatiirta iska diiwaan galiyaan isbitaalada bareefadka iyo dadkan maqaar kacdo Soomaalidu markay arkaan ku qancayaan qaxootinimada ku yimid oo dhaqtarnimada loo keenayo oo Syrianka iyo Yabaniyiinta iyo loo keenayo la leeyahay dhaqtar cadaanaha jooga asagoo aan aqoon u lahayn shahaado wadan dadkii diirka cad lagu qancinayo laakiin qofkii noloshiisa iyo caafimaadkiisa khatar ay ku gaari karto in wasaaradda caafimaadka galmudug ama wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ama maamul goboleed walba wasaaraddiisa caafimaadku ay hubiyaan siiyaan ninka dhaqtarnimada isbitaalka u furanaya ama u fariisanaya warqad fasax ruqso shaqo caafimaad sidaas ayaa dadka lagu badbaadin karaa waxay hadda waxa moodaa dalka inay ku soo qoleen dhaqaatiir fara badan ajaaniba kulli aan bartay Soomaaliya kuwaas iyaga horena waa u sheegtay marka maxaa marka laga soo dhaqaatiirta Soomaalida dhaqaatiirta Soomaalida kuwa badan oo wax barto aqoon lahayn way jiraan kuwa aan aqoon lahayn oo sheegtaana way jiraan ninka dilaaga ahaa oo khatarta hadda xamar laga qabtay oo shanta shahaado watay oo kale ayaa ka mid ah marka ummadii burburkii ayaa loogu soo hoos dhuntay dawladda waxaan u jeedinayaa iyo shacabkuba aqoonta leh in laga foojignaado lagana ilaaliyo khataraha shacabka dhaxdiisa looga qaraabanayo dhibkana ku soo celin kara hadda ogtahay ma jiraan adiga dad inta caafimaad tagay iyaga meesha caafimaad hay dhibaatooyin la kulmay inta ogtahay aad aragti ma jiraan way jiraan laakiin meesha ku habboon lagu sheegi doonaa waxa kale oo jira dawada laftigeeda ay inay soo marto shaybaar ama ogaansho wasaaradda caafimaad oo aqoon u leh dawada inay soo maraan dawooyin ganacsi baa yimid geedaa yimid tiradii ka batay oo dadka loo ammaanayo kuwaas oo dhibaato badan geysanaya waxaan u arkaa walaalow runtii markaan qiimayno dhaqaatiirta hadda waddanka ka jirta wasaaradda horta caafimaadku saameyn kuma leh dhaqaatiirta waddankan ka shaqeeya galmudug waa dad waxay u badan yihiin bareefad ah oo siday rabaan wax u maamusha oo say rabaan ayagu u isticmaala dhaqtarnimada check up la marsiiyo iyo la socod lala socdo iyo xaqiijin la xaqiijiyo midna ma leh dhaqtarka dilaaga ee dhaqtarka ahayn laakiin ku qaraabanaya dadka dhibaatada u geysanaya si looga feejignaan karaa waxa looga feejignaan karaa wasaaradda caafimaadka iyo tan federaalkuba inay xaqiijiyaan dadkaas soo maraan sifaha sharciga ah oo wasaaradda u yaala marka ka bacdina loo fasaxo inuu dhaqtar yahay haddii kale oo la arko inuu ku yahay dadka cudur asagu dhibaato u keenayo bal caafimaad u keenay daaye in markaas ka bacdi
laga qabto dadka oo la yiraahdo dhakhtar maahi waxaa jira dhaqaatiir ajaaniba oo hadda dalka si aad ugu soo badanaya kuwa iyaga maxaa isleedahay wadamada la marsiin karaa ama lagu ogaan karaa dhakhtarnimadooda waxay la mid yihiin kuwa Soomaalida ah inta meesha iska furta la dhakhtar baara dadku waxay fiirinayaan haykalka guud oo dawladnimo meesha ka jira haddii haykal dawladnimo jiro oo la socod jiro oo la xisaabtan jiro qofku wuxuu rabo ma samayn karo waxay la mid yihiin dadka dilaya oo haddii la kuuron yahay madaxa badda kala dhacayo kale la mid yihiin waa ka taran yihiin sababtoo ay meel bay u furteen cidina ma oga marka dhibaato weyn bay dadka ku yihiin waa ka warqabnaa dad badan oo eed sheeganayo bal wuxuu itaradda iyo dhibaato ugu kordhiya aragnay anagu marka ka shacab ahaan iyo ka odayaal ahaan waxaan leenahay dadka noocaasa wasaaradaha ku shaqada leh iyo haddii la kuuron yahay maamulka ku shaqada leh waxa ka qabteen dadkaas wax aysan lahayn ama aysan aqoon maamulahaya waxay xaq u leeyihiin in inta lala xisaabtamo dadka gacan ku dhigilayaasha laga mid dhigo oo xabsi daa'im lagu xukumo ma santahay waxaan u arkaa runtii waa wax hadda aad moodid inay dalka Soomaaliya ku soo badanayaan wayna iska jirtaa maadaama baaritaan rasmi ah ama dawlad si toos ah u daba gasha oo runtii arintaas ama daawooyinka koontaroosha ama dhaqaatiirta run ahaantii CV-gooda iyo background-kooda waxbarasho meelaha ay ka yimaadeen dabagal lagu sameeyo oo runtii ama internal ha noqoto ama external ha noqotee baaritaano noocaasi ma jiraan sidaas darteed ayay waxay sababaysaa in dadku waxyaabo noocaasa ay sameeyaan sidaasoo ay tahay marka daawooyinkana baaritaano ama daawooyin control ama de Soomaaliya quality control ama daawooyinka wax baaritaan ah oo daawo diyaarsan ama meel lab ah soo marta oo dawladda Soomaaliyeed ay baarto ma jirto sidaas darteed waxa laga yaabaa dadka Soomaaliyeed waxay qatar ugu jiraan marmarka qaar inay daawooyin dhacay isticmaalaan ama la siiyo waxa jira dhaqaatiir iyagu qalliimo oo waxyaabo kale sameeyo oo inta aqoonta dadka dhibaato ay ka soo gaaraan arrintaas si looga feejignaan karo ama looga badbaadi waxaa lagu feejignaan karaa in dhaqaatiirta laftirkooda la ogaado meelaha ay ka yimaadeen aqoonta u leeyihiin waxyaabaha ay sameynayaan hadday qallan yihiin hadday cudurro guud ay daaweynayaan dabcan way jirtaa isbitaallo waaweynaa jira dhaqaatiir waaweynaa ka shaqaysa oo heer caalamiya kuwa sidoo kale barayfadaha jira marka arrintaasi waxaa looga hortegi karaa waxay tahay in wasaaradda caafimaadka oo kale shaqadaas ayadaa iskale ay dabagal ku samayso si aysan u dhicin dad aan dhaqaatiir ahayn ama runtii aan heer waxbarasho dhaqaatiir aan ahayn ama aan dhakhtar ahayn in aysan dadka daaweyn sidaas marka wasaaradda caafimaadkana arrinta iska leh ayadaana laga rabaa inay baaritaanka samayso wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ama midda galmudug dhibaatada ugu badan ba midaasi ka jirta dhaqaatiirta ajaanibta ahi ma kontaroolna lamana ogaan karo laakiin haddii la baaro dib loo baaro waa la ogaan karaa qalab baa jira marka hadda markaan ka hor waxaan aaminsanahay inaan baaritaano lagu sameeyo laakiin markaan kadib waa laga rabaa wasaaradda caafimaadku in iyadu baaritaan ku samayso sidaasaana looga hortegi karaa si aysan u dhicin waxyaabo khaladaada dadkana daawooyin khaldan la siiyo aad baa maasanta bismillaahir rahmaanir rahiim horta markii laga hadlayo caafimaadka waa waxa ugu muhiimsan bini aadanka waaye marka khatarta ka iman karta waxaad leenahay in la hubiyo wasaaraddu caafimaadka oo kale inay hubiso heer federaal laga soo bilaabo ilaa dalku galkeeda dalka inay markay soo galayso la hubiyo tayadeeda la hubiyo dhakhtarka caafimaadka ama meesha furanaya laftigiisa la hubiyo ayaa lagu badbaadi karaa laakiin qof kasto oo wax soo madmadoobaystay hadduu yiraahdo meel baan furaya ama dawo aan la hubin ay dalka soo gasho waxa la oran karaa waa masiibada ugu weyn ee dalka dhacda
waxa qatar ka dhalan kara qofku inuu dawo aan lagu talagelin inuu yaani qofka uu siiyo kale ama qof dawo hore isticmaalahayay uu mid kale oo isku awood yihiin uu ugu daro oo dhibaato qofkii halkaas uu ka timaado أنا ما سنتاي وسؤال أباهن إن السويديو runtii horta dalka waxa ka jira wax badan waa aragtay oo telefishinada marka fiiriso kale waxa arkaysaa dhaqtarina qof dalka ka imaanaya waa inuu ku soo galaa si sharci inuu ku soo galo waa inuu wasaaradda caafimaadka soo maraa ama qof kasto imaanaya shaqo imaanaya wasaaradda iska leh waa inuu soo maraa marka waa inuu wasaaradda caafimaadka soo maraa waa in la hubiyaa shahaadadiisa waa in la fiiriyaa tayadiisa waa in la socdo dawada bixinayo wuxuu qorayo waa in la socdaa laakiin hadduu dalkii la iska yimaado oo sidii dhakhtar fanax oo kale meel la iska furto la yiraahdo dhakhtar baan ahay wadnaha ah ama neerbaha ah waa musiibada ugu weyn ee bulshada الرحمن الرحيم إلهي سبحانه وتعالى ما أسكر آدي أدبان تيفي قرنك ومهد علينا waxyaalaha jira waxa kamid ah Soomaaliya burburkii markuu dhacay wax walba control aan ba iska noqdeen oo burburkii colaadii dhamaayo hawlii baahay marka hadda hawshu meel fiican ay maraysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma iska aadi aad baan dawladda ugu mahad celinayna oo hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud marka anigu waxaan u arkaa dhaqaadiirtaas aad dib badan in dalka ku hayaan maxaa yeelay waxyaalo badan qataraha dhaca ama qaliinada ka dhacaan ama dawooyin isdhaaf ay ka dhacaan ama ma aragtay qof aan dawadan u soo baahnayn intii la siiyo oo la noqda buu aad iyo aad halis u noqda marka waxaan oran lahaa lambarada cabashada la siiyay wasaaraduhu ha bixiyaan oo qofkii qalad arka ama ma aragtay dawo qaldan dareemo ilmihiisa iyo dadkiisa lagu suumbiyo meel u soo cabto waa inuu helaa marka horena waxaan ka codsanayn wasaaradda ama Soomaaliya ama maamul goboleedka Galmudug dawladda Galmudug mideeda inay kontaroolaan qaadiirtu meesha ka imaanayso qaabka isbitaalada qaliinka qalabka laftirkiisa wax lagu baarayo ba aad iyo aad dhaliil uga jirta maxaa yeelay waxa laga yaabaa qofku dhowr meelood inuu tago qalabkaas uu qof bajira ka sheego oo dadkii tushuush ku dhaco wuxuu qabin qofka uu ka sheego dawo uu ahayn uu siiyo marka qalabka laftigiisa Soomaaliya yaala ba aad iyo aad dhaliil weyn ka jirta marka xorolaha dawladda federaalka ayaa mas'uuliyadda qaaday ayadana wax laga su'aalayaa iyo kuwa maamul goboleedyada inay arinta dabagal dhaba ku suubiyaan xaqiijiyaan oo dadka ay bulaadanka badbaadadiisa إلهي بكرامي بلادك أي أوجادان أنت عبد الرزاق محمد أحمد warbaahinta qaranka Soomaaliya gaal kacay